بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد waxaan maanta halkan isu taagay oon doonayaa inaan bal ka hadlo ama aan kelmada ka idhaahdo dhibaatada dami weyday ee ku saabsan dhulka Soomaaliya loo yaqaano. dalka Soomaaliya musiibo haysata, waxaan filayaa waa cadho Alle subxaanahu wa ta'aala oo qaabka ay u dhaqmayaan ee ku saabsan diinta iyo cadaaladda iyo dhaqanka bulshanimo oo aan waafaqsanayn qaabkii Alla ugu talagalay subxaanahu wa ta'aala. marka ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa khilaafka dhex taagan baarlamaanka dhexdiisa, baarlamaankan iskhilaafsan. aniga waxaan qabaa baarlamaanka waxa khilaafkiisa ugu wacan waa sababahan soo socda. waa marka ugu horeysay alla ka cabsi la'aan. xubnaha baarlamaanku dad allaha weyn ee khalqaday ee camalkooda qaalacanaya ka cabsanaya haba yaraatee ma aha. maxaa yeelay hadday dad ilaahay ka cabsanaya oo dastuurkiisa iyo diinta islaamka ku soconaya ay yihiin, khilaafkaasi maba yimaadeen. hadduu yimaadana wuu yaraan lahaa. qodobka kale waxaa weeye khilaafka ugu wacani waa baarlamaan qabyaalad ku dhisan, qoloqolay u dhisan yihiin iyo qabiil. maxaa yeelay baarlamaanka Soomaalida, shacabka Soomaalidu ma soo dooranin. waxaa soo doortay odayaal iyaga qudhoodu hunguri doonahoo keed wax ka heshaan isleh ayaa soo magacaabay, waxbayna dooranine. marka baarlamaan shacab doortay ma aha, oo shacabka Soomaalidu uu soo doortay ma aha inta sanaadiiq loo dhigay. marka taasina waxay dhalisay inay noqoto khilaaf joogto ah, dad kala qoloqolo ah oo qabiil ku dhisan, oo maxaa dhahdaay 4.5 iyo wax ka sii xun ku dhisan, reer u kala taagan. haddee sideebuu ay muwaafaqa ugu imanaysaa ummadda Soomaalida oo ku caanbaxday qabyaalad? markii xubno u qabyaaladeeyo baarlamaana meel loo joojiyey, haddee kuwaan baa qabyaaladda u kala miisaya. iyagii baa iskhilaafsan. qabyaalad baana u wacana waa dad qoloqolo ku dhisane, dad ma aha ku dhisan diin islaam iyo xataa gobol toona ku dhisan ma aha. maxaa dhahdaay waxaa kaloo isna khilaafka ka mid a odayaashan aan sheegay ee soo doortay, dad shacab soo doortay ma odayaal baa soo doortay iyaguna hunguri doona. qodob kalena wuxuu odhanayaa oo baarlamaanka khilaafkiisa ka mid a hunguri xumo. waa dad hunguri raadinaya oo keebaad wax ka heshaan uun iyo mooshin un arrintoodu tahay. mooshin yaad ridaan yaa dan kuu ayaan ku ahayn. marka weligay iyo allahay baarlamaankan intii uu dhisnaa muddo dheer 30 sanaba soo wixii isdaba joogi jiray ma aanan maqlin baarlamaanku waxaasuu ansixiyey ama waxaasuu qabtay maana maqlin. waxa keliyahan ka maqlaay waxaa weeye un mooshin bay wadaanoo ruux baa la ridayaa, shaqo kalaba male inay wax ridaan mooye. bal waxaa la arki jiray baarlamaan waa hay-ad siman oo xubno baarlamaana weeye, oo hay-adaha dawladda ka mid a sida golaha wasaaradda iyo madaxtooyada iyo ciidamada iyo waa hay-ad loo yaqaano xubnaha baarlamaanka ama golaha shacabka loo yaqaano. inay iyagu isla safnaadaan bay ahayd oo meel ka soo wada jeedsadaan oo wax isku waafaqaan oo ama wax wada ridaan ama wax wada yeelaan. iyagii baa iska horjeeda, weligood baa isku wareegaysteen weeye. marka khilaafkaas mashaakilka ay xubnaha baarlamaanka ka bixila waxaa weeyaane ka waxba la kala socon layahay weeye. waa kow, waa kala qoloqolo. waa laba, odayaal baa soo magacaabaday laaluushka qaatay ee shacab ma dooranin. waa saddex, waxaa weeye hunguri raadis iyo yaabdani kugu jirtay ayayna kugu jirin. waxaasoo dhan wuxuu dhaliyay in baarlamaanku isku wareegaysto uun maxaa dhahdaayey uu dhanna u kala bixi waayo. qodobka kale ee raba inaan u gudbo waxaa weeye gobolladan iyagu isku magacaaba dawladaha ee weliba madaxweynayaashana leh. waxaa mar aan dastuurka dalka indhaynaya aan ku arkay qodob odhanaya dawladda federaalka hoos yimaada ma aha ka tirsan aan idhaahdo. dawladda federaalka ka tirsan qodob noocaas aan ku arko dastuurka ku qoran. kaasi ma dastuur baa? xagee lagu arkay dawlad ka tirsan? marka horeba gobolladiiba waxaa loo ogolaaday inay dawlad noqdaan, madaxweynena yeeshaan. marka dawlad madaxweyne lihi maxay dawlad kale ku fali oy ka hoos iman? marka waxaa weeyaane dastuurka qaabku u dhisan yahay oo u samaysan yahay ayaaba qaab darro ah.
أهين أو مد أن هبا يراتي أو أديجين الشعب الصومالي دولة فدرال كترسم وقول كرياض ريها أبوي ما بو الآخرين وحرام أن هدان سير ودي لها إنه وحكا سيكون أكو لها مركز قبل الله هذا وحا هو عن يجنا والدولة مدح بناره ومدحوينا له مركز وحكا لو الطريق اللي إحنا تهيوم له أدوك الدولة دي ربان بهشيس لا سميسان أيام دولة دي ربان بمشاريع لا صحيحان أيام سير ربان بيلا أيام عيدا ما يليه هنا يجا وقارة وفدرال كبهوس منين ويبو حلقة يابا حتى عيدا كبالك الصوماليين إن كوا قبل الله قاركود كحول بديهم بلغة يابا كاسينا قول بويو ومشاكل كأمضة إلا وريرسنتها إلا الدقيلة هي وقبل الله باسي الدولة ده شيكتوي يمدحوين ياشا قلب كلور ربينا كهلا وحاوية عيدا كحوق الدلك الصوماليين وربن عيدا كالصوماليين وحوق لها دي وشير لها ومدحوينها كأمر قاطع إيو مامولك حكومة كأمر قاطع دي وشير لها ما وحنا ندعي لها وحنا ناني مدعين وحويني وحلا وحي خلاف إيه حمار هودن أود عيدا كا أي دولة تكون حلين وحيد مدحوينها إيو الوزاره أود وحي كون حلين لهاين عيدا كا إيه مشاكل كنا كون حلين لهاين أما هنقطة مشاكل قبل كإيمانية أما هنقطة مشاكل برلمان كإيمانية إلى البرلمان ما هي وهذا فرق الرياض وهو درجة عليه ودلول دي بدأ كحرا ولا لوش كسوق عطا مشكلة إنها استيتها وهي هدي عيدا حوق اللي يجري لها حوق الدولة الصومالية دي عيدا كأود يسوي حلا وحلين لها لكن عيدا ما تشيله عيدا الصومالية دي حوق دل ليلها ما تشيله وحبايب مرمر كينان جاردية يسسود دمجليان لكن أول حلا وقفتها وحلا وقفتها ماله وحاسورة جلا إنه سن كبا إنه سن أمر بوحبة كقادنين مدحوينها الدولة الطورة يا صورة جلا يرفع فرق سامبر يتصالون نلوتصو يا صورة جلا مركب حوي أنا مرة هورنا وانكهضي وولي بقاد يقول عليه والمرة يلا بيسد عملنا هين وحال لقاها دولة دم صومالي دم مدحوينه هذي رئيس وزراء هذو إنه عيدا كحوق ساران وحكى له أنت كترب بحان إن عيدا ذلك الله يصور هذه ذلك عيدا ليه هم عيدا شيشيات شو لها وما تدرش هي سوف رجلنا صوماليا وحصومرتي مر أفريقيا ولا كاكات كايدو كوا الدرس كلاه يكوا كفوا جبا كاكاتشان أيا صومرتي وحوالي سمعتي يا مجعي يا شرفتي صوماليا وطبع بابا يعني واحد سنة عيدا لعنتها واحد لو وحي ذلك الدقارة سوقلا إن عيدا لو بدي صافي عنه إذا haddii ciidan la dhiso waxa la wixii kale mashaakil oo dhan baa hadhi lahaa marka waxa yaana ku sii tumanne wadanku wuxuu u baahan yahay ciidan xoog leh oo dalka loo dhiso oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iska xil saaraan si ay waxa la wixii mashaakil ugu xaliyaan qodobka kale uu gudbaya waxa weeye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa aniga iga muuqata nooc jileeca ma cabsiya isku kalsoonaan la'aanba وحوياني ما إسئلالين با وحوياني وحلا وحن مشاكل كأيه دعيا واحد دوره موضوع وكله هاي مبشرته مرة وحلا لها نقل بدقة حلينا على النيبي مو قويين أضلك الجلجلي بعد عاي وأحمد حوينها يشغل سامان المغرب ومعنا له الله شيء هذا مشاكل تاجية هي وحوياني وحوين وقارها وقاته وحكوك لحلنا يمان المغرب مدحوينه ذو أمر بحيوي إنه أمر بحيو ضدك هلا شغله برنامج هلا تشلو ولا وزارة هلا تشلو لكن وحوينا كما تبيست إنه قرآن قاوتوي وأمر بحيو وأمر كوبحيانا وحلا وحي ذلك عيدا نويه أي فليان اللي الدولة إمام الفريدة نويه وحلا الهبين ما الحكومة ضلت هاجلا ورميش وين دولة الدولة الإسناتو مركب ماذا حويناها هي رئيس وزارها هي قولها وزارة قدر iyo xubnaha baarlamaanka iyo waxa la wixii la halmaanay ma waxay isu maleeyeen wadanku inuu intooda u yahay ma inuu intoodaas oo kaliya yahay isu maleeyeen aw shacabkii iyo xuquuqdiisii aw dalkii bad iyo barin iyo hawaba lahaa xuduudadii dalku away sharaftii iyo sumcaddii iyo magacii dalku away ma intooda u baa dawladda iyo dalkii isku wareegaysanaysa waxa la wixii kale oo dhan bay iloobeen waliba gaar ahaan baarlamaanku waxay bay ilowsan yihiin in wax kale ba jira iyaga mooyee iyagu umba min alif ilaa ya inay waxaliyaan doonayaan shacabkiiba iska iloobeen madaxweyne ilowsan yihiin ra'iisul wasaariya golihii wasaaradda shaqada loo dirsaday ilowsan yihiin kaligood baaba isu arka inay jiraan marka hore baarlamaanka faraha badan ee boqolaalka
iyo madaxweynayaashan iyo gobolladan faraha badan ee boqolaalka gobollada mana badnee madaxweynayaasha tiro badantee war waxaniba waxayna kharibo weeye waxaanu arki jirnay baarlamaan madaxweynuhu markuu doono uu kala diro markuu doonana isugu yeedho oo madaxweynuhu awoodiisu meesha ka muuqataanu arki jirnay baarlamaan iyagule annaga madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii wixii oo dhan kala dirayna leh oo shay rabaan u tasarrufaya baarlamaankan hunguriga uun halkaa uun u madowdahay wax kale oo anagu aan ku sheegi karaa ma jiro maxaa yeele baarlamaan oo aan idinla hadleen weligiin bal waxaad tarteen ood sheegteen oo ansixiseen oo dalku ka faa'iideeyay shacabku noo sheega mooshin uun lala ordi oo waxbaanu ridaynaa leeleeyihin oo xataa hadday isku afaqi lahayn maxaa dib u horjoogi lahaa oo wax isla ridi lahaayeen iyagii baa iska horjeeda isku wareegaysan aad iyo aad baan uga xumahay inaan waxaa maanta ka hadlo oo ah wax jiro oo xaqiiqo ah dadkii oo dhan baana hadlaya dhibaatadu shacabkii bay wada taabatay ruux kastay taabatay marka waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa allaha weyn ha laga cabsado ilaaha weyn ha laga cabsado tiihi ba ayna haya tiihi reer bani israa'iil ku dhacay zamankii nabiyullaahi muuse calayhi salaam ku dhacay oo kale oo markii ay amarkii nabiga ay diideen muuse weeye oo intuu qudus galayidhi ay diideen war gala idinkaa ka adkaan doonee geli mayno adig iyo ilaahaagu la dagaalama horta nimanka kancaaniinta ee xooga badana meesha ku jira markaad ka adkaataan baanu soo geli doonaa meesha ka baxaane ee ilaahayna uu 40 sano oo tiiha ku riday meel alla meel u socdaanay meel ka socdaantay garan waayeen muddadii tiihoodana rasuulkii muuse iyo haaruun bay halkaa ku dhinteen intii tiihu socday iyagana meel ku dhibcin la waayay kama dambaystiina maxaa idhaahdaayay meelay maanta waxay ku sugan yihiin waa reer bani israa'iil ay ka muuqato dhibaatadii weli ay sidii u saaran tahay marka waxaa weeye tiihi baa ina haystaa tiiha allah inaga saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad isku meel u jeeda oo meesha u socotay iyo hadafkeeda garanaysa allah inaga dhigo ilaahu ummadda soomaaliyeed allah raxmaan iyo raxmad u soo rogo ilaahu ummadda tawfiiq sii ilaahu xubnaheeda baarlamaanka tawfiiq sii ilaahu adaa qaadirahe inta mas-uuliyiinta ummadda shacabka soomaaliya ka ah allah weyne tawfiiq ha siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh